السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو داود meel kasta joogtaan halkan waa daacad media haddii aad soo taasoo subscribe dhe muuqaalka like share suuga gaar asxaab badan una bixi barnaamijyada dambe maanta waxaan joognaa bartamaha suuqa magaalada Jigjiga waxaan su'aalo ka weydiin doonaa sidii awal hore ay noo ahayd street questions-keeni dhalinyarada soo mari doonta wadada ayagoo mataqaanaa ku jawaabi doona fikradooda iyo waxa ay ka aaminsan yihiin idin soo hordhaynaya su'aasha isla socod wanaagsan ugu horreyn kusoo dhawaada daacad media ka bilaabay magacaaga waan dhowahay walaal magacaygu waa Rayaan Axmed. Rayaan aad baan ugu faraxsanahay ka mid noqoto gabadhii koobaad ee ka qayb galaysa barnaamijka iyo guud ahaan ka soo muuqanaysa ciwaankeena waxaan ku weydiinayaa su'aal iska kaftana yani maskaxiyan ahaana markaas waxa ka oranaysaa kuma la oran karaa saaxiib Saaxiib waxaa la oran karaa qofka mar kasta oo dhibaato kugu dhacdo ama farxad iyo dhibaato laba gooraba garabkaaga taagan mar walba garabkaaga ka waayin. ugu horreyn kusoo dhawaada daacad media ka bilaabay magacaaga magacay walaal waxaa la dhahaa Siinab Cabdi. Siinabay su'aal baan ku weydiinayaa maskaxiyana fikradaada ah marka su'aasha waxa ka oranaysaa qofka la oran karaa saaxiib saaxiib walaal waxaa la dhihi karaa qofka mar walba heel iyo hooba kula garab taagan guusha inta badan dadka bilaadan guusha waxay ku gaaraan waa saaxiibtinimada ruuxa garabkaaga taagan baa saaxiib la dhihi karaa walaal fikirkayga kamalaha adigu saaxiib garabkaaga taagan markaas uu garab dabcan waxaan aaminsanahay halka waxay soo gaarsiiyay inay saaxiibtinimo dad aan u haya ay tahay oo guusheeda mar walba jecel inay heerkaa gaaro marka hal qof ku koonaan kara saaxiibto mise la wax noqon kara in ka badan qof hal niyahow dee kulay qalbiga waxaa la yidhi laba uma qaybsamo waa hal miduun saaxiibtinimada inay hal qof intaan aaminsanahay ani fikirkayga daacad media ka bilaabay magacaaga Magacaygu waa Samiira Xasan Warsame. Samiira aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka ka galayso sidaad u aragtaa su'aal baan ku weydiinayaa fikrahantaada Waad weydiin kartaa caadi. su'aasha waxa ka oranaysaa qofka la oran karaa saaxiib Saaxiib waxaan oran karaa anigu walaalkay amba walaalahay amba familkayga amba qaraabadayda amba qofka ii dhuman oran karaa. Cid kale markaa ma oran karo iyo qofka kaliya nolosha la qaybsan kara bis. Inta ma qofka saaxiib lama oran karo saaxiibka lama oran karo parce dad badan baan arkay dee isku kay bedelay oo wajiyaal hadhow kugu soo baxay laakiin kan kale qaraabada tin hadhow xal waa lagu heli doonaa oo familku ay soo dhaxgali doonaan laakiin kan kale hadhow waa salaamo weeyaan ma ogoli marka qofka ma ogoli qaraabiya amba kan nolosha la qaybsan waxaan la intuu ku koobnaan karaa baa salaada saaxiibka ilaa walaa 2 ilaa 3 ugu horreyn kusoo dhawaada daacad media ka bilaabay magacaaga waan dhawa walaal caadi aad u dhawa magacaygu waa Nadira. Nadira su'aal baan ku weydiinayaa fikrahantaada sidaad u aragtaa waa caadi waa loo baahan yahay su'aasha waxa ka oranaysaa qofka la oran karaa saaxiib waxaa la oran karaa qof kasta ku dhow ayaa la oran karaa saaxiib dadka kaaga dhow ayaa la oran karaa saaxiib la amsa qof ku koobnaan karaa kula taa saaxiib dhowr qof maasanta ayaadoo ugu horreyn kusoo dhawaada daacad media ka bilaabay magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawahay walaal magacaygu waa Suur Ismaaciil halkaas sinta su'aal baan ku weydiinayaa fikrahantaada sidaad u aragtaa hay ii weydii okay su'aasha waxa ka oranaysaa qofka la oran karaa saaxiib qofka la oran karaa saaxiib qofka dib iyo dheef kula wadaagi kara qof kasta saaxiib ma noqon karo hooyadaada saaxiib kula noqon kartaa ninkaagu saaxiib kula noqon karaa qofka ugu dhow oo dhibkaaga diidaya uma saaxiib ma noqon kartaa uma saaxiib la oran karaa sidaas marka saaxiibku la amsa qof ku koobnaan karaa bay kula tahay shakhsiyan ahaanteed wuxuu ka koobnaan karaa ilaa 3 qof ilaa 4 qof ilaa dhowr qof ka koobnaan karaa hay oo dadka kala soocan kartid adigu hay damaad ugu horreyn kusoo dhawaada daacad media ka bilaabay magacaaga Deeqa Xasan waan dhawahay deeqa su'aal baan ku weydiinayaa fikrahantaada sidaad u aragtaa way fiican tahay su'aasha waxa ka oranaysaa qofka la oran karaa saaxiib qof waliba oo jeceshay weeyaan ayaa saaxiib oran karaysaa la amsa qof ku koobnaan karaa bay kula tahay saaxiib qof waliba niyadaada ka heshay ayaa la hortaa saaxiib qofkaaga kala la hortaa maasanta adaa mudan ugu horreyn kusoo dhawaada daacad media ka bilaabay magacaaga waan ku soo dhawaay walaal magacayga waxa la dhahdaa Zara su'aal baan ku weydiinayaa fikrahantaada sidaad u aragtaa waxaad wax dhiba ma jirto diyaar baan su'aasha waxa ka oranaysaa qofka la oran karaa saaxiib qofka ku daafici karaa ee ku dhowri karaa rada xumaan iyo waxa ku geysa unba saaxiib la oran karaa inta ku dhow marka ilaa qofku saaxiibku mise qof ku koobnaan karaa baa salaada shakhsiyaantaada ya saaxiibku la mise qof ku koobnaan karaa bay kula tahay shakhsiyaantaada adoo inta badan waxaan saaxiibka u ahaan lahaa hooyadii dad kale oo dhaafsan ma jirin waalidku ma qanacsano
ma soo tahay هذا مضام